Asalaamu calaykum dhammaantiin soo dhawaada daawadayaal. Muuqaalkani wuxuu daba socdaa muuqaalkii ka horeeyey aynu kaga hadlaynay commands-ka lagu isticmaalo Windows-ka. Command-ka ugu horeeya ee raba muuqaalkan insha Allah wuxuu noqon doonaa command-ka lagu ogaado haddii aad rabto folder waxa ku dhex jira inaad rabto inaad ogaato command ayaa loo isticmaalaa. Command-kaas ayaynu ku ogaan doonaa. Sidoo kale qaabka haddii aad folder aad gasho dib looga soo noqdo command-ka qaabka looga soo noqdo ayaynu ku baran doonaa. qaabka loo eego structure-ka folderska ayaynu eegi doonaa. Sida folder laisaga bedelo oo folder kale loo tago ayaynu eegi doonaa. Sidoo kale waxaynu eegi doonaa taskii oo loo isticmaalo marka aad rabto program inaad ku xidho adigoo isticmaalaya command. Qaabka loogu xidhana waynu ogaan doonaa. Research ayaynu isticmaali doonaa iyo waxay tahay command-kan iyo qaabka loo isticmaalo. Sidoo kale net statistics ayaynu isticmaali doonaa command-ka iyo qaabka loo isticmaalo. mar labaad ku soo dhawow muuqaalkan wuxuu daba socdaa kii ka horeeyey. Haddii aana soo daawan muuqaalkii ka horeeyey fadlan soo daawo muuqaalka ka horeeyey kan si aad ula socoto commands-kan. waxaa soo dhigi doonaa qaybta description-ka. waayahay ugu horeyn waxaynu baran doonaa qaabka loo list gareeyo ama qaabka lagu ogaado folder waxyaabaha ku dhex jira. markaan leeyahay folder waxyaabaha ku dhex jira waxaan ka wadaa tusaale ahaan waxaad rabtaa folderkan oo kale inaad gasho markaad isticmaalayso Windows-kaaga. double click ayaa lagu dhuftaa si aad folderkaasi waxa ku dhex jira aad u ogaato. sidan oo kale double click markaad ku dhufto folderka waxa ku dhex jira ayaad ogaanaysaa. haddaba sidee inagoo isticmaalayna command prompt commands-na isticmaalayna u ogaan karnaa folderska ku dhex jira folderkan aynu hadda ku jirno. waayahay waxaa lagu ogaadaa oo la isticmaalaa command-ka loo yaqaano dir haddaan idhaahdo wuxuu tusayaa dhammaan folderka hadda aan joogo iyo waxa ku dhex jira oo dhan. folderkaas markaa waxa ku dhex jira waxaanoo dhan ayaa ku wada dhex jira. command-ka dir ayaa loo yaqaanaa waxaana loo isticmaalaa listing in lagu list gareeyo folder waxa ku dhex jira. dir ayaa loo yaqaanaa. waayo haddaba folderkan waxaad rabtaa inaad dib uga noqoto. tusaale ahaan folderkan ayaynu ku dhex jirnaa hadda dib ayaan rabnaa inaan uga noqono. normally waxaynu ku dhufanaa calaamadan oo tilmaamaysa back. calaamadda markaad ku dhufato folderkaasi kii ka horeeyey ayaa tegaysaa. haddaba inagoo isticmaalayna commands sidee ayaa dib loogu noqdaa. waxaa dib loogu noqdaa cd iyo dot sidaad halkan ka arkayso. cd iyo dot ayaa loo isticmaalaa markaad rabto inaad dib u noqoto. cd iyo dot haddaan idhaahdo markii hore waxaan ku jiray computerkayga userkayga magaciisa waxaan hadda ku jiraa users. haddaan mar labaad kusii celiyo oo cd iyo dot ay idhaahdo waxaan tegayaa toos root-ka partition-ka ama qaybtan hard disk-ga partition-kayga c root-kiisa ayaan tegayaa oon ka wado haddaan laba jeer back idhaahdo micnaheedu waxa weeya waxaan joogaa imika halkan ayaan joogaa. si aynu u ogaano halkan inaynu joogno una xaqiijino waxaan isticmaali doonaa command-kii aynu baranay ee loo yaqaano dir. haddaan idhaahdo waxaad arkaysaa halkaas inaan joogo ama folderska uu halkan iga soo list gareeyey iyo folderska halkan yaala inay isu mid yihiin. files perform dhammaan waa kuwa faylasha halkan inaga soo list gareeyey. markaad rabto inaad dib u noqoto waxaad isticmaalaa dot cd iyo dot haddii aad list garaynayso folderskana dir ayaa la isticmaalaa. waaye haddii aad rabto inaad gasho folderska sidoo kale waxaa la isticmaalaa command kale oo loo yaqaano ch iyo di iyo r. ch iyo dir haddaan idhaahdo iskuna dayo folderkaasi inaan galo halka folderkaas ayaan rabaa inaan commands-kan isticmaalaya inaan galo. waxaan leeyahay marka ch dir markaan la isticmaalayo cd deetan waxaan ku qorayaa folderka aan galayo magaciisa. folderka aan galayo magaciisu waxa weeyaan files. intaa haddaan enter idhaahdo waxaan ku dhex jiraa folderka files. haddaan idhaahdo list garee folderka maxaa ku dhex jira oon dir aan idhaahdo wuxuu tusinayaa folderka wixii kusii dhex jiray. folderka list waxaa kusii dhex jira hal folder. folderkaasi magaciisana waxaa loo yaqaanaa folder. waay haddaba haddii aad rabto tusaale ahaan waxaad rabtaa inaad aragto folderkan adigoo gelin iyo wixii kusii dhex jira inaad aragto ayaad rabtaa. sidee ayaa commands-ka loogu isticmaalaa. command loo isticmaala ayaa jira. command-ka waxaa loo yaqaanaa tree. haddaan tree idhaahdo wuxuu tusinayaa folderka loo yaqaano magaciisu folder waxaa kusii dhex jira folder kale oo loo yaqaano home. folderka loo yaqaano folder maxaa kusii dhex jira folder kale oo loo yaqaano home. adigoo gudaha u gelin ayaa dusha aad ka arki kartaa. command-kana waxaa loo yaqaanaa tree. sidoo kale command-ka kale kusii xigaynu baran doono waxa weeyaan command loo yaqaano tasking.
hore waxaynu usoo baranay markaynu isticmaali jirnay videogii ka horeeyey waxa loo yaqaano command loo yaqaano task list wuxuu list garaynaya dhammaan programyada iyo serviceska ay isticmaalayaan ee computerkayga xaaladan imika la joogo ka daaran programka nameka program ID-ga ama process ID-ga session nameka iyo session numberka iyo memoryga intuu ka isticmaalay dhammaan waxaan oo dhan waxay ka daaran yihiin computerkayga xaaladan imika la joogo waay haddaba markaad rabto mid ka mid a inaad xidho waxaa la isticmaalaa command kale oo loo yaqaano magaciisa taskkill ayaa loo isticmaalaa taskkill laba nooc ayaa loo isticmaalaa inaad tidhaahdo /i iyo m iyo inaad tidhaahdo i iyo m markaad tidhaahdo kadib waxaad raacini programka ama serviceka aad xidhayso magaciisa qaab kalena waa loo xidhaa waxaana la idhahdaa qaabkaa kale waxaa la isticmaalaa BID oo ah process ID-ga program namekii waa kan BID-giina waa kan haddaad rabto inaad xidho marna magacan ayaad ku xidhi kartaa marna waxaad ku xidhi kartaa numberka waay commandka kusii xiga waxaa loo yaqaanaa tracert ayaa loo yaqaanaa maxaa loo isticmaalaa commandkaasi waxaa loo isticmaalaa markaad rabto inaad ogaato wuxuu la mid yahay commandkii hore aynu muuqaalkii hore kaga soo hadalnay ee la odhan jiray basbin wuxuuna tusayay commandkaasi dhammaan all available wuxuuna tusayay routerska inoo dhexeeya inaga iyo host kale tusaale ahaan waxaan rabaa google inaan idhaahdo imisa network ayaa noo dhexeeya aniga iyo google so waxaan leeyahay tracert iyo google.com ayaan leeyahay sorry khadka iga maqan aan soo daarta khadka waxaan leeyahay on ayaan leeyahay on markaan idhaahdo commandka mar laba soo cilmiya oo igu soo xirmeyn okay yes hadduu igu soo xirmay yes waxaan leeyahay commandkii iran gare mar labaad commandkan wuxuuna tusayaa dhammaan inta router ee inoogu dhexeeya inaga iyo hosti kale ama hostigaasi local ha noqdo ama mid kale oo internetka ha noqdo commandkan waxaa loo yaqaanaa tracert wuxuu la mid yahay basbin ayuu la mid yahay commandka kusii xiga waxaa loo yaqaanaa net statistics ayaa loo yaqaanaa haddii aad rabto inaad ogaato all open ports closed ports dhammaan boortiyada serviceka isticmaalaya boorti numberka iyo waxaasoo dhan haddaad rabto inaad ogaato waxaa la isticmaalaa commandkan loo yaqaano net stats loo yaqaano waxaa loo yaqaana net stats ayaa loo yaqaanaa aan idhaahdo netis statis aan idhaahdo sorry yes net status ka reebo esta waa kan wuxuu tusayaa commandkan dhammaan open ports computerkayga boortiyada furan IP addressyadooda xaaladooda iyo dhammaan information fara badan oo la xiriira marabo computerkayga boortiskiisa iyo IP addressyadiisa inaan tuso laakiin qaabka ayaa loo isticmaalaa waxaa kaloo not status loo isticmaalaa option ah -a markaynu commandka raacino xarfo noocana ama -a ama wax kale waxaa loo yaqaana waxa kale aynu sii raacinayno option ayaa loo yaqaana haddaba haddaynu idhaahno -a wuxuuna tusayaa all IP address ayaynu tusayaa commandkaasi marka commandkaasi waxaa loo yaqaanaa net status wuxuuna tusayaa dhammaan open ports closed ports protocolada TCP iyo UDP waxaasoo dhan ayuu wada tusayaa boortiyadaasi ma kuwa openaba ma kuwa listeninaba mise waa kuwa closed waxaasoo dhan ayuu wada tusayaa waxaana magaciisa loo yaqaanaa net status ayaa loo yaqaanaa haddaba inagoo soo koobaynaa iskuna dayaynaa inaynu soo koobno muuqaalkana ka ilaalinayna inuu noqdo muuqaal aada u sii dheer waxaan dila wadaagi lahaa haddii aad rabto dhammaan commandska macquulka ah ee lagu isticmaalo windowska waxaad isticmaali kartaa adigoon wax command aan rangarayn ayaa waxaad odhan kartaa help markaan idhaahdo wuxuu tusayaa all possible commandska lagu isticmaalo CMD-da iyo ay noqoto kii ugu horeeyey commandkii ugu horeeyey aynu muuqaalkii kasoo horeeyey kaga soo hadalnay oo AS O iyo C ahaa haddii ay noqoto commandka hadda aynu baranaynay ee CD loo yaqaano CHCB dhammaan commandskani waa commandska dhammaan ay macquul tahay inaad ka rangarayso ama aad ku dhex isticmaasho CMD-da commandskii waa kan sidoo kale commandkan waxa uu yahay description yar oo kooban halkan ayuu kaa siinaya tusaale ahaan waxaan rabaa iminka inaan wax ka ogaado commandka loo yaqaano CD commandkii waa kan muxuu yahay commandkaasi wuxuuna tusayaa ama wuxuu ku tusayaa ama wuxuu kuu sameynayaa inuu kaa bedelo folderkaad hadda ku jirto oo uu kuu bedelo folder kale description kanaga wuxuu displays the name
wuxuu ku tusayaa magaca ama wuxuu kaa bedelayaa changes the current directory wuxuu kaa bedelayaa folderka aad hadda ku jirto directory macnaheedu waxa weeyaan waxaa laga wadaa folder ayaa laga wadaa waa kuwan commands-kii kale copy delete dir echo commands-ka dhammaantood waa wada macquul haddaba si aynu usii fudaydino muuqaalkeena haddii aad rabto command ka mida commandada lagu isticmaalo windowska inaad ogaato sidee loo isticmaali karaa commandkan options ma leeyahay waxaa lasii raaciyaa waxaa loo sameeyaa ama la isticmaalaa qaab yar oo fudud oo ah inaad tidhaahdo commandka aad rabto inaad wax ka ogaato iyo -h intaa haddii aan israaciyo wuxuu i tusayaa commandkan imika waxba ma laha ayuu igu yidhi laakiin waxaynu eegi karnaa ch ama chdir ayaan odhan karnaa deetana h ayaan leeyahay ama waxaan odhan karaa help ayaan odhan karaa okay tusaale ahaan haynu eegno command kale commandka waxaynu eegaynaa net status ayaynu eegaynaa deetana h ayaan raacinayaa markaan h idhaahdo wuxuu i tusayaa ama h markaan raaciyo wuxuu tusayaa commandkaasi iyo dhammaan optionska ay macquulka tahay commandka in lagu isticmaalo haddeer waxaanu isticmaalnay dash a wuxuuna tusayay all connections iyo listening ports ayuuna tusayay dash a markaad tiraahdo haddii aad tiraahdo net status iyo dash a wuxuu ku tusayaa waa kan waxa uu ku tusayey warbixin yaroo kooban dash e maxay ku tusaysaa marka any command commandada qaarkood waxaa laga yaabaa inaanan lahayn description noocana laakiin commands-ka kale badanaa inta badan way wada leeyihiin haddii aan isku dayno mid kale inaynu fiirino optionskiisa kale ee macquulka ah tusaale ahaan waxaan eegayaa command kale oo halkan ku jira oo loo yaqaano format ayaan eegayaa format waa kan format ayaan eegayaa waxaan leeyahay commandka format imse option ama options noocma ayaa loo isticmaalaa sida format ayaan leeyahay dash h invalid drive ayuu leeyahay commandkaasina ma laha sidoo kale aan idhaahdo command kale aad soo qabto oo macquul ay tahay in la isticmaalo waxaan isku dayayaa disk bartka oo kale inaan eego so waxaan leeyahay disk bart ma leeyahay options ama commandkaas qaabka loo isticmaalo optionskiisa macquulka ah ayaan eegayaa disk bart dash h ayaan leeyahay waa kan yes waa kan wuxuu tusayaa dhammaan commandkaasi description yar oo kooban oo ku saabsan oo tilmaamaya waxa uu yahay iyo optionska ay macquulka tahay in commandkaasi laga helo dash show ayaa ka mida oo ina tusaysa ama haddii aan idhaahdo diskigan hadda aynu ku jirno wax naga tus yes waa kan oo ku tusinayaa dhammaan macquulka commandska ay tahay ama optionska ay macquulka tahay commandka gaarka in lagu isticmaalo muuqaalkan intan ayaan kusoo koobayaa waxaan ku xasuusin lahaa haddii aad tahay arday jecel barashada IT-ga gaar ahaan waxyaabaha la xidhiidha hacking-ka web development-ka iyo waxyaabaha la xidhiidha network-ga nagu xidhnow channelkeena waxaa ku diyaara muuqaalo hore oo aynu ka sameynay hacking-ka sidoo kale waxaan ku xasuusin lahaa haddii aanad subscribe saarin channelkeena oonad nagu soo biirin inaad subscribe saarto muuqaalkan wixii aad u baahan tahay macluumaad in laga bixiyana qaybta commentiga gureed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu